Asalaamu calaykum daawadayaal waa Bolimog Media aad uga barateen halkan inuu idinka soo gudbiyo casharo wax ku ool ah iyo warbixino aad u xiiso badan iyo wararka ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha badan. Waxaan haddaba maantay oo ay taariikhdu tahay 30kii bishii lixaad idiin soo gudbinaynaa barnaamij ka hadlaya dalka Indonesia iyo muslimiinta ku nool dalkaasi. Haddaba daawade fadlan intaanan sii gudagelin amaba aynaan bilaabin barnaamijkeena adigoo mahadsan haddii taa marka kuugu horreysa channelka soo booqato fadlan subscribe iyo like kala bakhaylin adigoo mahadsan. Haddaba daawadayaal haddaanu idinka siino warbixin dalka Indonesia waxaa weeyaan dal ku yaala koonfur bari ee waddanka amaba qaaradda Asia taasoo u dhaxeeyo badweynta loo yaqaano Pacific Ocean iyo Indian waana waddanka koowaad ee ugu badan xagga muslimka marka la eego adduunyada inteeda kale. Waa dalka ugu horeeya ee muslimiinta ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Guud ahaan dalka Indonesia ayaa dadkiisu waxa ay dhan yihiin 267 milyan iyadoo tirada dadka muslimiinta ee halkaasi ku noolna ay yihiin 225 milyan taasoo ka dhigan 99% in dadka halkaasi ku nool ay yihiin dad muslin ah. Haddaba waxa ay muslimiinta dalkaasi ku nool Indonesia ay leeyihiin shiico tiro yar oo 1 milyan lagu qiyaasay ayaa ku jira oo dhiganta 0.5% iyo qolada la yiraahdo Ahmadiyya oo tiro lagu qiyaasay 400,000 oo u dhiganta 0.2%. Haddaba daawadayaal dalka Indonesia ayaa waxa uu qaatay xorriyadiisa 1945 isaga oo si toos ah ay u dhaqan galay madax bannaanidiisa 1949. dalkan oo ay soo gumaysan jireen wadamada reer Yurub khaasatan wadamada Dutch-ka ayaa waxa ay la sheegayaa in uu diinta Islaamka ay gaadhay qarnigii 13aad iyadoo la sheegaya in qarnigaasi ay geeyeen ugu yaraan qarnigaas 8aad ilaa 13aad ay geeyeen halkaasi diinta amaba ku faafiyeen ayaa la yiri dad Carab ah oo ganacsi u tagay jasiiradahaasi. Haddaba dalkan Indonesia ayaa waxa uu yahay dal mucjiso ah waxaa la sheegaa inay tiro ahaan uu ka kooban yahay 17,000 ilaa 18,000 oo jasiiradood. Dalkan ayaa waxa uu yahay oo kale dalka 14aad ee ugu badka weyn amaba baaxadda dhulkiisa ugu weyn ee dunida isaga oo soo galaya kaalinta 14aad waxaana lagu qiyaasay inuu dhulkiisu yahay 1,904,569 kiiloomitir oo isku wareeg isaga oo ay u dhiganto 735,358 square mile. Haddaba dalkan ayaa waxa uu kale uu yahay dalka afraad ee ugu dadka badan dunida marka loo eego wadamada qaar ka dunida sida wadamada China, Hindiya iyo ka badan iyo dalka Mareykanka. Haddaba dalkan ayaa waxa uu soo galayaa xagga tirada badida dadka dalka afraad adduunkan wuxuu galayaa dalka 14aad ee ugu dhulka weyn. Waxa uu kaloo dalka Indonesia mucjisooyinka uu leeyahay kamid waxaa ku yaala in ka badan 800,000 oo masjid iyadoo lagu qiyaasi doono tirada 2030 taariikhdu markay tahay in uu gaaraan 1 milyan oo masjid taasoo ka dhigaysa dalka mar walba ugu horeeya amaba ugu tirada badan masaajidada adduunka iyo muslimiinta. Dalkan ayaa waxaa la sheegayaa in dadka muslimka ah ee tirada dhan 225 milyan ay guud ahaan ay yihiin dad sunni ah. Haddaba dalkan Indonesia ayaa waxa uu mucjisooyinka aadka loola yaabo adduunka ay tahay waa dal wada jasiirad ah kulligiis jasiiradahaas oo 17,500 ilaa 18,000 oo jasiirado lagu qiyaaso iyadoo ay taasi noqonayso mucjiso aad iyo aad loola yaabo jasiirada intaa tiro leeg oo kumanaan gaaraya dal leh. Haddaba dalkan ayaa isaguna ah dalalka soo koreeya marka loo eego xagga dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada wadamada Asia ayuu wuxuu ka soo galayaa safka hore amaba kaalinta hore ayuu soo galayaa marka loo eego wadamada
adeer ugu cadcad marka laga reebo wadamada Jaynaha iyo Hindiya iyo Japan iyo Korea iyo wadamadaas ayuu isagu wuxuu soo galayaa kaalinta wadamada safka hore ah ee soo dhaweynaya wadamadaasi xagga dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo koritaanka dadka muslimiinta iyadoo loo qiyaasayo 50 sano ee soo socda inay gaari doonaan ayaa la yiri muslimiinta dalkaas in ka badan 300 milyan. waa Bolmog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh.